1991 inta la ekayd maxaa se qortay burburkii dowladdii Soomaaliyeed halkan dhig kay daawan doona iyo ka iminka ay daawanaya iyo ka dhalan doono maxaa buugaaga ku qoran dhaayriga dowladdii Siyaad Barre ee Soomaaliyeed ee burburtay intii dowlad soo martay deegaanka Soomaali maxaad ka dhiibatay oo tala ah khadar soo dhawow Ramadaan Mubaarak maanta bishu waa 16 baan soomaynaa aanu suxuuranay xalay iyo shalay waan seexan kari weynay qoriga iyo xabadda ka socota xamar iyo doorashadii farmaajo ayaan ka la dooranayay fariimooyinkii aan gudbiyay baan kula wadaagi adu maxaad ila wadaagi waxaan ka rabaa maanta inaad wax ila wadaagto markaad dhageysato كلب خير دار الله خاتمه خير نوغو ختم الله خاتمه خير نوغو ختم كلب خير الى دغيسو doorashadan farmaajo aad loogu sacabtumayo la soo dhaweynayo ee farmaajo iigeeya ay baxayso ayaa qodobka 3,001 ee bi'ada ah CG-KDDG ayaa dila wadaagi marka hore farxadda iyo shacabka Soomaaliyeed oo muujinaya Soomaali mid ah oo qabiil laga baxayo xafladaas waan kala qayb qaadan iyo farxadda Allah noo siyaadi inta arrinka daacadda ka ah waa idinka mahad celin Ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo idaas waa inta xagga caafimaadka CG waxaan la hadlayaa reer KDDG 3001 code Somali waxa ka dhashay wiil hooyada iyo aabahay bi'ada ayaan akhrinaa bi'ada ayaa noo sheegaysa Somali waxa uu taliya qabiil kasta inta xunba u talista badana waxaan aaminsanahay ilaa maalinkii Siyaad Barre dowladdii Siyaad Barre 20 sano soo xukumaysay 20 sano markay bi'adu akhriday sidii uu ku baxay markay bi'adu akhriday wixii ka dambeeyay markay akhrido ilaa maalinkii Siyaad Barre la eriyay CG waxay aaminsan tahay in nin daarooda in uu Soomaali isku soo celiyo inay adag tahay oo ka jaanis fiican yahay qabiilada kale ee Soomaaliyeed meeshu mayna ahayn xamar meeshu miyay daayeen hawiye unukaale meeshu mayna xamar ahayn mayna hawiye joogin unukaale may daayeen hawiye miiriyaha 30 sano ka hor miiriyuhu sida maanta yahay miiriyuhu maanta siduu u hadlayaa Soomaali ma qabiil ma ka ilbaxday hawiye ma ka ilbaxay qabiil meeqanin oo hawiye ayaa ku fashilmay meeqanin oo daarooda ku fashilmay Siyaad Barre intii ka dambeysay Hargeysa away iyo Reewaqooyi shantii jirtay miyaynan hadda koonfur oo kaliya mayna shan marin iyo beesha lixaad oo u talisa oo ku noqotay xornimada ka hor ee say ahayd dalka waa la haystaa berigi hore waxaa haystay Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis hadda waxaa idin haystaa Soomaali oo Soomaali waxaa haysta intii xortahay waxaa haystaa maxaan cunaa iyo waxaa haystaa qandaraas qaate waxaa haystaa dowladda kala duwan oo ninba mandiil darsanayo malqaad gaar darsanayo Afrika laga bilaa hay'ado iyo maxaan ku rahaa xalane ayaa mushaharka ka qaato oo dana gaar ah ka fushada Soomaaliya khayrkeeda la boobi dahabkeeda la boodi badeeda la boobi sun iyo balaaya lagu ururin jaanisiha dawladuhu ay helayaan oo dhan baa la rabaa waxa aan aaminsanahay haddii intaasoo dhan ay idin muuqato
inaad ka joogtaan farmaajo haddiiba ilaahay ka dhigo midkii soomaali dhisi lahaa dhisitaanka iyo daacadnimada iyo wadaninimada waata ay sii kordhinayso dalku inuu dib u burburo mar labaad xamar mar labaad in laga qaxo ayaa muuqata dana temporary ah waa laga leeyahay kuwa qandaraas qaatayaasha madaxweynayaashan iminka tartanka soo galay intee laga dacdiin intee in leeg kii fiicnaa isagu taagma haysto hawiye kii xumaa ee hawiye باورka haystay maleeshiyaadka haystay ee qandaraaska bartay xoolaha intee in leeg buu ogolaanayaa nin daarooda isagoo intaas jeer ku fasalmay soo madaxweynayaashii saddex ma noolo reer unuka ma yeelayaan ilaahay waa dhici kartaa ilaahu nooga dhig ma yeelayaan saddex nin oo madaxweyne oo weliba nool afar nin oo madaxweyne oo nool ku dar saddex abgaal iyo maxaan ku dhahaa iyo kii habargidir sheekh habargidir ugu roonaaba ay hawi eriyeen yaa eriye kulligood okay afarta madaxweyne ee hawiyo nool inuu nin daaroodii ku guuleysto inuu sharafta Soomaaliya soo celiyo intee leeg baad aaminaysaan ama ogolaanayaan iyagu intee leeg baad aaminaysaan hadduu noqdo kii ugu fiicnadaaba shar sii kordhin fiicnida uu farmaajo fiicnaado hadduu xumaado dee la garay waa wuxuu yahay laakiin hadduu fiicnaado uu military dhiso oo laga dareemo in ay shanqadhii sharaf soo noqonayso hawiye iyo nimankii reer waqooyiga iska mid ahalkooda iyo niman kabla lax la yidhaaho hadday in yar laga dareemo sharafta inuu soo celiyo farmaajo waa la iskugu tegayaa mar labaad yayna xamar burburin mar labaad yayna burburin ka daaya oo nin kale oo Soomaali ah ha la doorto oo hawiyana ha nasto daaroodna ha nasto okay kaasaa soo celin karaa maskaxdayda ma gelayso farmaajo daarooda mareexaana ayaa soo celinaya ay ogolaanayaan hawiye ama reer waqooyi ogolaanayaan ama kablalah ogolaanayo jabhadihii baad mar labaad abuuraysaan Soomaaliya ka daaya jaamacadda cagaaran baad la tarin sideedaba ma aaminsanin daarooda in bahasha uu soo celiyo sharafta waxaan ka jeclahay Soomaalida kale على سمطر يا كشرف فضنا nin kasta oo Soomaali qabiil kasta oo jareed iyo jileec oo Soomaali ah inuu sharaf soo celiyo waa soo dhaweey waan dooran nin daarooda ma dooran yaaniga bi'ada leh anu mali CG baale haddaad maqli weydaan Soomaaliyay bari markuu sharafta soo celiyo farmaajo waa lagu kici waa la isku tagi ma u heelaysaan haddii u heelinayn iska daaya haddaad u heelaysaan tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakiilan Allahu naastur dhegeysanaya kilibka ama dhegeysan doono ra'yigaagu maanta muxuu noqon talada maxaad siin shacabka Soomaaliyeed ee dhibanayaasha ah maxaad siin kuwa kullay qaxaya dhaxantu dilayso ee gaajadu dili doonto maxaa tala siin farmaajo ma kula talin inuu bahasha iska casilo ha iska casile wax looga tago ma haysaa horta madaarood iyo hawiye kale baa Soomaali ah awa dirtii lahaa way dhashay Soomaali awa dirtii lahaa Soomaaliba waa dir mahawiye iyo daarood kaliya baa Soomaali ah kuwa kale maxay yihiin ma kula talin lahayd nin kasta oo aan daarood iyo hawiye ahayn hadal kuma banaano hadal uu ka xidhan yahay I think inay saasta ku banaan waliba professorada direed professorada sheekhaal horta sheekhaal ma dirba professorada jareer weyne reexamar raxan weyn iyo cid kasta oo Soomaaliya ma inta uba ma kula talin lahayd hadalku ka xidhan yahay kaftanku ka xidhan yahay raganimadu ka xidhan tahay oo yaa ka xidhay adaa iska xidhay
seed u hadli kartaa adigoo Soomaali ah oo intaasoo sano aan hal mar isku soo sharaxin ama damac inaad Soomaali hogaamiso talada aadna siinayso shacabka siin muxuu yahay okay nimanka Soomaali ee daarood ama hawiye aan ahayn ee soo gala Facebookyada ee idaacaduhu wareystaan waa ka xiran yahay af Soomaaligu waa ka xiran yahay kamaradu waa ka xiran tahay raganimadu waa ka xiran tahay wadanimadu oo adaa iska xiray afka ha ka hadin qalbiga ka hadal dalkan ma badbaadin ma kula talin war hadaa jirto dirow iyo intii kale soo raacaysay dirow ma kula talin iskeen oo dalkan hogaami okay hadday taasi dhacdo ma taageeraynaa mise ma idii sheegaa wuxuuna u imanaynin okay ninka direed ma kuu sheegaa wuxuuna u imanaynin ma ninkaas xamar iman kara oo dowlad Soomaaliyeed hawaysan kara Yusuf soo dhawow Khadar soo dhawow klibka ku dhaafay dhageyso galka dhageyso maxaad ka tiri markii farmaajo dooranayay ka jooga maanta maxaad oran ma kula talin farmaajo inuu asilo dahays asile yaa diyaar ah waxa saaxiibadeyda luuqa ku jira ay igula murmaan oo igula doodaan farmaajo marka la ogaado inuu diyaar yahay in uu dhigo doorasho waxa soo baxaya professor badan oo marka burburre marka maxaanu daawanaynaa hadda soo inaan aragna ma ah inuu ruqaansigiisa iyo raamsigiisa iyo raganimadiisa inaan aragno soo ma wanin farmaajo dhaama oo inuu ku bedelo ma haysaa anuu ma hayo ka isqarinayo soo bax haddaad soo bixi weydo mucaaradka ka daa farmaajo okay kuwan meesha saaxada jooga nin aad dooran kara ma ku jira haddaba hawiye sidaan ka rabay maynaan ka helin aad buu u jilicsan yahay jawaabaha laga bixiyey qorigii ay qaateen qarandumiyaasha maalinta qori la qaato maxaa tala Soomaali siin mar labaad intay xamar dumi lahayd sheekada kilibkay wataas farmaajo waxaan kula talin lahaa in uu iscasilo haddaan arkayo qof dhaama haddaba hawiye iyo Soomaali dan ma u tahay farmaajo iscasilo mayoma dan ma u tahay inuu sii joogo mayoma hal condition shacabka Soomaaliyeed shacabka Muqdisho hadduuna garab siinaynin hadduu garab siinayo farmaajo kula tali inuu joogo hadduuna garab siinaynin kula tali farmaajo inuu iscasilo hays casilaya looga tagaa dadkii u tashaday inay kala googooyaan Soomaaliya hanu deyno iyo ilaahay hanu deyno okay ilaahay wax lama garanay karo hadduu ilaahay noogu tala galay inayna isxukumi karayn oo in la xukumo oo in la googooyo qaar Itoobiya la siiyo qaar Kenya la siiyo maxaa u diibisaa in laga dhigo 23 dawladood maxaa u diibi haddaan isxukumi weynay in la rabo Hargeysa in la ictiraafo oo tan la bahdilo maxaa u diibi ha iska godo Hargeysa ha iska godo aduu yaa dooran ma Itoobiya lagu dooran mise Soomaali hadalka waxaan soo galay inaan klibka idin dhageysiyo ilaa maalinkii siyaad barre cararay ilaa maanta ma aaminsanin nin daarooda inuu ku guuleysanayo waxaan maanta aan sii aaminsanahay inuu nin hawiye ka sii fog yahay haddaba jaaniska waxa haysta inta kale han aragno jaaniska waxa haysta Soomaalida kale aan hawiye iyo daarood ahayn ma kula talin lahayd ra'iisul wasaaraha in uu gaarsiiyo haddii ka yeelayaan in uu gaarsiiyo doorasho ma kula talin lahayd inaabtay soo dhawow klib yar oo maalintii siyaad la dooranayay farmaajo aan duubay ayaan soo geliyay dhageyso waxaan hayaa kumayaal farmaajo ka jooga war waa cadaysan yahay waa nin daaro war waa cadaysan yahay mar labo mareexa war saddexaad meeshu waa Muqdisho war hawiye uu jooga war hawiye dilkii uu bartay nabad ma rabo okay daaroodna lama rabo
okay idoora diida waxaan ku darayaa taladayda caasimadda in laga raro xamar markaad kilibkaa dhagaysato okay ila soo xiriir si gaara haddaad rabto maalintii siyaad barre uu ku soo noqonayay afgooye taladan siiyey saraakiisha Soomaalida maalintuu dhimanayay ninka la yiraahdo Axmed Nuur Sarow maalintuu dhimanayay Bashiir Biliqo foonka ayaan gacanta dhigtaan ku hayay war dagaalka ka daaya siyaad barre maalintuu soo laba celinayay uu dalka waan qaban lahaa mar labaad waxaan fadhiyay operator okay halka waxa horteeda taxnaa saraakiishii daarood oo dhan oo ku jira in siyaad barre maslax iyo wasiiradii oo soo cararay baa horteeda taxan xarbi waxaan dhaxmaray aniga iyo ragaas notice-kii aan bixiyay waxa fiicnaan lahayd maanta kuwii oo qaar kuwii hayay oo nool oo idin dhageysiya intii ka dambeysay madaxweyne kastoo la doorto ama isdoorta CG waxay ka bixinaysaa talo okay nin daarooda ha ka sugin inuu hawiye yeelo nin hawiyana ha ka sugin inuu arrinta ku guuleysto xalku waxa weeyaan caasimadda in laga raaro muqdisho hawiye waa in loo sheegaa caasimadda waad ka rarteen muqdisho haddii aan ka raray xageen geynaa bal ka soo fikir meeshaan geyn lahay ma Jubbaland baan geynaa Axmed Nuur baan u geynaa ma waxaan geynaa maxaan ku rahaa Somaliland waxaan geynaa Puntland anu waxaan oran lahaa madaxnimada iyo caasimadda iyo xaal iyo xumayn ha la isku daro reewqooyi halka ha la geeyo say u soo guureen hanu guuro halka han tagno okay hawiye caasimadda wuxuu yiri kuma haboona muqdisho waa in laga raraa ficil bay ku yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed ee qaxaya xamar ka qaxaya daaroodka ee hawiye dir ee sheekhaal ee cid kasta leh aan hawiye ahayn ha iskaga tagaan ha loo baneeyo hawiye iyo rasaasta iyo magaaladooda inay dumiyaan daaroodo iskaga bax diro iskaga bax dhulka ha dhigaan markay dhulka dhigaanna mar dambe loo soo noqon maayo okay ama shacabka hawiye waa afar wiil oo jalka siinayaan oo biilka siinayaan oo xaggana kala shaqeyn xaggana afna maqashiin xukun jilicsan maxalli iyo guur jilicsan family jilicsan min faa'iido male ra'iisul wasaaruhu waa in uu go'aan adag iyo bir iyo gacan adag waa inuu ku qabtaa afartan tuugta ninka bil Ramadaan xabad qaatay riday mar labaad ee diyaar u xamar inay burburto wuxuu istaahilaa inuu kaas mucaarad ma ah wuxuu istaahilaa in la jabeeyo okay nimanka u soo xaydxaytay inay mar labaad xamar dumiyaan Soomaaliya ka quusta caasimadana ha laga raro ha loo baneeyo ha la iskaga tago ama afartan oo jeebaysan waa inuu roob leh shacabka Soomaaliyeed tusaa haddii intu tusi waayo ka socdo ka guura dibna ha u soo noqonina kilibka yar ee Dubai farmaajana okay dhageyso la wadaag halkan igu reeb wixii fariina salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh